kaloo iyadana maanta mucjisaan arkay oo qaar kubadoodayaanba qaar iyaguna ka soo jeeda anigu wakiilada amxaarada dhahdaa reer Garowe iyo Boosaaso qayb kamid oo kuwa maskaxda laga xadaya waxaan arkay Cabdiwali Gaas oo uu magac doonanaya dawooyin iyo xoogaa adigu kharashaado ummadda Soomaaliyeed ee halka degan iska soo ururiyeen ee reer Garowe wuxuu ku qoray dawladda Puntland oo ugu deeqday dawladda Soomaaliya calan yar oo xun oo qabiili oo reer leeyahay iyo calankii Soomaaliya ay isku soo arsawir maxaa uu diiday bal may ku qoraan maamulka Puntland ama maamulka Soomaaliya xitaa maamulka Soomaaliyeed oo laga saar war waxaan waday wadahayaan qaar Soomaaliland ma la yaabanayna imika way tooseen badhalinyaradiyo insha Allah taala way ka gadoodi doonaan wala mid kani wala mid mil guudkii lama dhayo ha ka warwareegin qaar ba kornay Puntland ba Soomaaliya war Puntland iyo Soomaaliya oo hayn Soomaaliya dawooyin ugu deeqdayo dawooyin bay siinaysaa dawladda Soomaaliland waa khalad dawladda Puntland waa khalad dawladda la yiraahdo Allahu musta'an la yiraahdo galmudug waa khalad hadaa doonaysaan deeduku taageera anu cabsanaan baa la yiraahdaa iyo midnimo qaran waxa soo dhan dawladda ma hal dawlad wada ku leey dawladana waa xukuumadda federaalka federaal haday tahayna ma aha in la yiraahdo horta federaalka fahma federaalku ma waxa weeyaan la yiraahdo Soomaaliland waa dawlad Puntland waa dawlad galmudug waa dawlad koonfur galbeed waa dawlad qof kale oo xanuunsanaya baa tahay saaxiibe Cabdiwali Gaas baa dawlad diray oo ku soo qoray muxuu hadii ay daacad ka tahay oo Soomaali isaguna wax tarayo muxuu ku qorayaa dawladda Puntland maana khalad ahayn maana waxaan kugu sii soconayn anaga 7 sanadood la waariyo oo been loo sheegay lagu lahaa muxuu ninkii heesi jiray ee hanuuniye loo jiray dushayda taqarrada jacaylkana dushayda ka aragta anagu maanu dawladnimo horumar ku gaadno hadaan nahay shacabka reer Hargeysa iyo reer Burco iyo reer Boorame annaga ugu taariikh badan annaga ugu dhibaato badan ba imika waxa badaha ku daadanaya Masar waa reer Hargeysa iyo reer Burco iyo marka dee runta laga hadlayo ila runta Soomaalidu way istiidsiisaayo runta muxuu yiri runta magan istiidsi iyagoo runta arkaya bay meel kale isku qaadaan badda Liibiya waxa ku dhimanaya waa Burco iyo Hargeysa kuwa maanta ugu taariikhda badan waa koonfurta waagii dagaaladii baa ama Mareykan iyo Australia dhulka loo qaado kuwa maanta ugu dhibaatada badan shaqalaanta ku haysa kuwa marka hadii dawladnimo wax lagu helayo ninkaaga yar adiguna adeerka difaacaya ama qabiilkiisa difaacayo annagu maanu ku helno dawladnimo wax maanu taariikhtan kaga baaqsano maanu horumar ku keenno hadii reer halka dego u baxo yiraahdo dawlad baan helay ay horumar keenayaan may reer Hargeysa reer Burco may riish noqdaan may ka maarmaan tahriibto halka fadhiyaan oo shaqo helaano wax barasho helaano arrimihii bulshada helaan oo horumar ku gaadhi may sida waa xenophobia waa racism waa cunsuriyad waa Soomaalida la isku dirayo kuwana bal qaatay waraaba maxaa la yiri kaciye iyo ka aamusan waxa halis badan ka aamusan kuwana halkaas ay istaageen waxa bay leeyinba deem xaaray nagu wada in kastoo ka soo dhacsan doono oo aan ragna la dagaalami doono kuwana iyaguna Hargeysa iyo Burco aftoobay ee na godoomiye halkaas ay taageen oo xilin anagu Soomaalina lama yiraahdo been iyo waxaan la garanayn naga dhiga amxaaran naga dhigi kartaan carabna naga dhigi kartaan oo qasab qofna ma oran karo waxaan ahayn noqo ma noqonayno waligeena Soomaaliban waxa ka sii daran ka Puntland haysta isaguna waa xanuun caadi ku beeraya dabadna dood bay gelinayaan maanta waxaan arkay walaalkay Cabdifataax Boodari qabyaalada iska daaya oo idinku iska daaya Soomaalinimada oo soo noqo oo leeyihiin waxba kuma jabna in dawladda Puntland lagu qoro dawladda Puntland ma Turki ba ma Imaaraad ba xagay ka timi dawladda yareedu kuna ما لا يعني أنت ماشي قسم يستان تعال ودولة بولا وروح دولة صومالية هل دولة بلاد وأنا وحصون تيني اللي بدي لها هرمرناكم يشرتوا مال معمول قبلات يرى مال أنتوا تقولي ده هذا دولة بان وحنا ولا يبان هرمر كشرين طبعا نما كاول الإمارات كوان كسر العلنية إمارات كوتشيدود وحوية لبوا ريجد كده هنيو يمكن دبر برابع استانبه يجي عم حارس كل مان بوس أصلا واتنا ما تولوا سياحي وعلميين waxay doonayaan 4 kilomitrna loo soo dhaafina doonay ciidamada Keensadaan balantii madaxweynahana billahi alaykum Soomaali maanta madaxweynuhu la hadla wax fahmi dhagweynaha noqonina war madaxweynuhu markuu lahaa Soomaaliya waa in lagu dhex jiraa waa runtii waa in lagu dhex jiraa madaxweynahana shalay buu yimi wadankan muu xumeynayso hore loo xumiyay imikana cadow fara badan oo shaar badan sita oo Soomaaliyeed oo maamul goboleed bay ku soo sheeganayaan maalin waa mid xildhibaan kugu jira intaas ay ugu dhex jirta markan kale xutaa uu leeyahay war caasimadaha yaa la idinka yeedhin wuxuu gala jeedaa caasimadan yar ee xajka u aadaane
Ethiopia ninkan cawaran ee u tagaan dhalinyaradan la hadlaya anigu islaan iyo macal islaamaha ilaahay tahadaayo odayaasha xanuunsanaya la hadli maayo war dhalinyaro kuwiina wax baranayo xaqad wax baranaysa Soomaaliya marka laga wareego ama qurbo wax ku soo baro qaar kale imiyuna Ingiriiska meelaha joogo nolosha ka dhacay waxaan leeyahay niyo ma yahay halkaas aynu leen waxba eedha saarina qofka qurbaa ku xumaaday dalkeena halka waynu difaacana waynu dawladda barbar istaagna waxa kale dabcan xalayto ay soo galiyeen social media oo yidhaahdeen madaxweyne Farmaajo wuxuu yidhi macaanigi min khaldi gaadheeno maca beenti anaga min la soo galeen baan xitaa xalayta arkii 4 sano aniga lay doortayo warniyo nabadoon baan noqonayaa afarta waa hore Mareykanku joogayo qaar baa jira walaal codkaysi saaro Soomaaliya cadawgeeni inagu dhex jira marka madaxweynuhu maanta hadalku sheegay wallahi waan ka aad iyo aad baan runtii uu ii damqay hadalkaas isku aragti baba noqonayba waayo cadawgeeniga ma fogaba waxa inagu cadawo kan madaxweynihiisi iyo madaxweynuhu hogaaminayay qaranka hogaaminayay intuu codkiisi cod kale ma bari hore uu yidhi soo saaro war cusub inooga dhigay oranaya madaxweynuhu yidhi war madaxweynaha tacsiba uu taalay hawl buu ku jiray goorma uu codka yidhi hadalka laga soo dubay waa beentood wax allaala wax ka jira ma jiraan waa war xumo tashulka waa kuwa ummadda isku dira waa kuwa qabyaaladaystayaasha